su-aasha qawaani waxay tahay gabadhan daay waxay dhahday wiilka markaad dooranaysid waa inaad ku doorataa nasabnimadiisa iyo diintiisa inaad ku dooratid tusaale ani wiilkan xiriiraan wada bilawnay diintiisa ku qancay nasabnimadiisana waa ku qancay laakiin reerkayga kuma aysan qancin waxaa jiro xeer Soomaaliyeed lagu dhaqmo ah wiilkan baan waayo kala tusaale ama qabiil hebel oo ka soo jeeda anigana ma soo galo wiilkii anigina xiriirkan meel fiican oo maraa waxaan rabnaa inaan isguursado seeraba marka macnaha xal see ah macnaha markaas aan qaadana go'aanka soo noqona midaas aan rabaa in liiga jawaabo waa su'aal muhiim ah haddii aan u guda galno waxay dhahday haddii uu wiil isoo doonto ama aan wada heshiino faamilkana uu diidan yahay in wiilkaas aan guursado sidee baan wax ka yeelaa in badan problem waxaa jiro badan ee Soomaalideena aanan si fiican aysan u xaqiijinin wax walba dunida xal ayaa loo helaa xalkana waxaa ku raadin kartaa aqligaada kartidaada aqoontaada aad u leedahay dhanka diinta waalidkana waxaan aaminsanahay inay yihiin waxa ugu jilcan waalidiinta maxaa yeelay adiga waxaad ka soo dhaxbaxday calooshooda baarkooda ayaa tahay waxaad adiga doonaysa in ay ku diidayaan ma aaminsani laakiin waxaad mar walba u baahan tahay wasiilada saxda aad qaabka aad ugu gudbin lahayd inay tahay wasiilo sax ah wiilkan مثلا nasabkiisa ayaa duran nasabka haduu duran yahay qabiiladana ay jiraan ilaahayna uu yiri qabiilkana li tacaarafu waaye sax la isku doorta ma ahayn Soomahan shakhsiga aad dooranaysa adiga ayaa go'aan kale adiga ayaa nolosha iska leh hooyii aabo way kugu taageerayaan mar walba laakiin waxa loo baahan yahay adiga diiniyan qof dhisan hadii aad tahay waalidka inaad ku qancisaa maxaa yeelay qaal Allah subhanahu wa ta'ala muxuu leeyahay inna akramakum inda Allah atqaakum ilaahay xaqiisa waxa karaamo kale oo laga aqoonsan yahay oo laga ictiraafsan yahay oo laga jecel yahay midka diinta leh midka taqwada leh ee ilaahay caabuda adigana naarta ayuu ka badbaadinaa insha Allah maxaa yeelay waxaad aaminaysaa inuu yahay midka kaliya noloshaada badbaadin kare qofka haduu taqwadiisa ay wanaagsan tahay ma aaminsani in reerkaada ay diidayaan maxaa yeelay wuxuu ba heestaaba xubkii kaliya ee wax walba lagu fahamsiin lahaa diinteena waa nasiixa waxaan aaminsanahay muslimiinta iska daayeen dadka gaalada ah ayaa lagu soo islaamiyaa Soomaha inta loo sheego wax walba loo sharaxo diinta inay fiican tahay waalid ku dhalay muslim ah ku soo barbaaray diinta yaqaana sidee bay ku noqon kartaa inuu diido ama uu diro nasab ninkii raga ahaa dooranay gabadha saxaabi ayaa jiri Soomaha xadiiska Nabi sallallahu alayhi wasallam oo ahaa oo sidee baan ku doortaa xadiiskaas wuxuu ahaa inuu dhahay wali jamaliha wali hasabiha wali diiniha wali maaliha maxaa la soo celiyay wali diiniha markii la dhahay diinti ayaa asal Soomaha fadfir bidaati diin taribad yadak maxaan ku taagtaagsanaynaa maanta aan rabnaa inaan bayaanino qofka diinta leh qofkan diinu leeyahay taqwadiisu way wanaagsan tahay reerkaadana way ku qancayaan kaliya adiga ha durin maxaad u duraysaa adiga ha u bayaaninin inaad durtid dadka durayaan hadalladooda mustaqbal miyay ku noqonayaan waa maya adiga jecel wiilkan adiga doortay waxaad u aragtaa inaad isfahmi kartaan noloshana waa tafaahum بينكم لبدينا هداد اسفهمي ويسان ما آمن سني إن دد كلا اسفهمسي كران وحانا رجني قوسس لسكو دري جبر يويل maalinta ugu horeysay ee qoyska uu gabadha soo dooranaya ama uu siinay gabadha reerka kale isla faamiliga ah waa la wada faraxsan yahay meerkii waa la farxay gabadhii waa la gurugay u badbaadashay waa la farxay laakiin maxaa jiro problem Soomaalideena inta badan xalka problemka maraadiso sida xaqiiqda dhabtaana waxa la rabaa boqolkiiba 99.9 in xalka la raadiyo anagu maxaynu nahay cagsi boqolkiiba 99.9 waxaan raadinaa problemka maraadina xalka waayo waxaan fiirinaa problemka waalidka wuxuu jecel yahay wax fiican adiga ayaa wax fiican ka dhihi kara qofka nafsigiisa haduuran dambi ayuu kuugu yahay qabiilka ilaahay wuxuu u soo saaray in la isku aqoonsado ee in kala saarama ahayn shakhsiga adiga ayaa noloshaada iska go'aan ka qaado ma yahay mid ku farxad gelin kara ma yahay mid adiga noloshaada aad ku maareen karta ama aad nolol waarta ku waari kartaan ma isfahmi kartaan u
ubadkiina ma barbaarin kartaan wadooyinka ma isla mari kartaan ee adag nolosha safar baa idin sugaya dunidaana waa laga tegayaa xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam kun fi dunya ka'annaka qariib wa 'abir as-sabil aayadii maxay ahayd waxaan ku dabaqaynaa insha Allah anaga diinteena islaamka inama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinat waxaan ku soo gabagabeynaa insha Allah inaad fahamtaan